ku soo dhawaada Journey to Fame qaybteedii shanaad wadadii caanimada ee qodxaal ahayd waa walaalkiin Omar halka aad igala socotaan waa YouTube-kayga Omar barbar hadii aad horay subscribe u ahayn hadeer subscribe dheh hadii aad horay subscribe u tirina walaal aad iyo aad baad mahadsantahay sharaf iyo karaamo iyo cisi intaba waan ku hayaa like-ta iyo share-ta iyo comment-iga hadda waad ka garan kadhaan tilmaan la idin siin maayo waxa tihiin dad ilaah iyo islaam yaqaan oo madaxa tiba ku leh خاص أهان وحنا هلكان كسلام يا شرف يا كرامة وهي رير كومنتي رير كومنتيو أود اللي دهين هرت قفله متشرو والله وبالله وطلع رير كومنتي ودولة للسن وأن عدل بني آدم وبهنين مركان سالي هاي رير كومنتي وعدت ككلية ومسكح هذا كل فكرة مركي وحطاونا يعني قف كستمركو وحطاونا يقاب وحاجر وحود داوضه رير كومنتي ساسي وحو إيجيان إلى outside the box ويموقتها برنامج كتشوجان قف كان public figure كا أسوي حكوا شراء وحسوا جيدنتي game كي بكل حشراء لكن تذكر برنامج كتشوجا أركتي وحيكون فكريان حرقة أو أن عدنا تشوب كهين مركز رير كومنتيو وما هتسنتهين شرف كرامة اللي دهين أنا جو بدي من سنة هي وذي وين أو حنا هاي جرنا يوحتركين وحن أجا هي ولي بمشهد أنا جلس وبحدين بورتدير عركان كل شيء يوتيوب كان والله وبالله وطلعوا كل شيء كرتان dadka kaliya waxaa tiin aan cidna kama sayrsanayn xor ah adduunka meel kasta kala jooga reer commenti haday ku cimaamadan waad cimaamadan tahay cid aad u baahan tahay oo aad u daba fariisanayso in ma garanaysaa aad tiraado wartay waxa la dhaqdhaqaajiyo ma jirto reer commenti salaam baan idin saaray marka inta ka soo tago waxaanu ka hadlaynay topic-ii ahaa Chelsea-gu waa wax aad u xun qofka bini aadanka haddii uu masayr galo hadda waad aragteen dumarka ragga iyo dumarka markay isqabaan haddii dumarku uu masayr galo waxa laga yaabaa naagta iyo ninka isqaba haddii ay kala masayraan oo masayr meesha yimaado xataa waxa laga yaabaa inay meel xun isla gaaraan wax xun isku sameeyaan masayrku waa wax aad u xun nabi yuusuf alayhi salaatu wasalaam waxa ka masayray walaalihii la dhashay نبي باوضة دلي نبي يعقوب باوضة دلي ولاليه لا دشي با انتي كم الصيرين او كحيين بعيل كردين كاسي خميس كيسي waxay u keeneen aabihiisna aragu beela wadugtiin masayrka hadaan tusaalooyin badan ka soo qaato waxyaabo badan ka soo qaato ilaahay yaa bidin keenaya masayrku waa wax jira qof kasta oo maanta dunida saaranna wuxuu rabaa inuu asagu noqdo dawana only number 1 mana soconayso dee narcissist miyada narcissist qof waxa jira jecel keligii inuu muuqdo keligii inuu qadeeyo keligii inuu meel maro keligii bini aadankan uu saxo oo galaan hadii aadan bini aadanka kula nool oo ilaahay arladan kugula beeray aadan waxba u ogolaan sideed rabtaa adigu inay wax kuugu hagaagaan ma soconayso inaad keligaa tiraahdo waxa ii hagaagaya ma soconayso marka masayrka baan idin waday programkii masayrka ahaa aniga heeska barbar markaan qaaday wad wada ogtihiin wax qarsoon ma adduunka daba iyo dacal Soomaali Maxamed markay istuurtay finaanada lagu soo qoray baabuur yar yar oo sa u soconaysa war waxaan ku iri meel walba Canada wadankan aan joogo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo Ahmed Hussein oo markaas qof Soomaali ah ama Afrikaan oo xil qabta ugu sareeyay ba ii yaray xaflad ay lahaayeen fanaaniinta magaalada aan wada joognay waa wada xanaaqeen sida ku dhici kartaa cunugan xunka faabka oo shalay yimid oo magaalada ku cusba in Justin Trudeau uu yiraahdo xafladeeda ka soo qabgalo sida ku dhici kartaa masayr anigu marka waxaan ogahay ma leh waa la socdaa qof kasta xabiib baan u ahay ama ha masayro ama yuusan masayrin ama cuqdadii ha ku jirto wallaahi oo billaahi oo tallahi qofkii dabeecadeyda yaqaan uu yaqaana reer Toronto waxaan ahaa qof qalbi furan oo saa u dhaxqaaday gabigoodaba dad iga xun oo aakhira ii dir lahaa baan la socon jiray dad masayrsan oo xaasidnimo ka buuxsan baan la socon jiray oo aan iga dareemi jirin oo aan weligii oran maxaad iga masayrsantihiin masayrkii uu sii gudbay wuxuu gaaray heer waxa weeye la iska daba shaqeeyo xaafadihii la iska galo guryihii la iska dubiyo la isdaba joogo maanta oo dhan la isdaba jiitama dad la isku soo diro xataa qabiila lagu soo diraya qabiilo baa lagu soo diray waxa leeyahay way idin neceb yahay
ujeedka keliya oo laga leeyahay waxaa weeye dadkaas kaa masiirsan ay leeyihin waxaa weeye inaad ka hooseyso inaad ka liidato wax kale oo ujeeda oo uu leeyahay male 5 wiil oo walaala hadday meel isugu timaado mid walba wuxuu rabaa inuu isagu noqdo hoggaanka diinta islaamka haddaad fiiriso diinta kristanka haddaad fiiriso diinta buddhiska haddaad fiiriso cid walba meel walba haddaad fiiriso qof kasta wuxuu rabaa inuu noqdo isagu hoggaankii haddii qof kale noqdo oo la sheego qofka aad loo sheegana wuu dhibsanaya walaalka adiga kula dhashay baa mararka qaar wuxuu dhibsanayaa libintaada your own brother baa wuxuu dhibsanayaa sheegaaga iyo in lagu hadal hayo iyo in lagaa sheekayo la yiraahdo war ninkan hadal yaana idinku daalin heeskii barbar oo taariikhda galay wuxuu dhaliyay masayr tira badan 2018kii fanaaniin adiga fanka kaaga horeeyay oo caan ah idinkoo wada socda markii ayagana la salaami waayay adigana lagu salaamo soo rogo la galo dabcan dee waa maseeriya qofkii kula socday aniga marka waan dareema xaalad adag inay tahay xaaladaas idinkoo 2 nin wada socda oo labadii nin wada socday adiga lagu salaamo asagii waxa weeye aan la salaamin adiguna maad kalifin dee maad dhihin ninkaan ayaan salaamin anigana hal salaamo maad dhihin waa wax waqtigu keenay marka masayrkaasi wuxuu kalifay inaan galo hal qofna ma ahayn mid ku kooban wuxuu ahaa mid dad badan ku kooban dad badan ka yimid markaad dhowr meelood oo dee negative ah ay dharbaaxooyin negative ah oo tiro badan ama waxyaabo badan oo negative markay ku soo galaan waa dareemaysaa warxay xaggii wax ka qaldan yihiin ansixe baad dhahaysaa waad isweydiinaysaa geesahaad eegaysaa marka resultigu wuxuu kuu soo baxayaa markaad ogaatid cidda kugu hareeraysan ama dadka aad la socoto baa waxay kuu soo jiidi karaan negative ama waxay kuu soo jiidi karaan positive marka waa muhiim qofka aad la socoto ama dadka aad la socoto ama dadka aad ku xiran tahay inay yihiin dad kuu qalbi nadiifa oo kuu qalbi wanaagsan haddaysan ahayn dad kuu qalbi nadiifa oo kuu qalbi wanaagsan meel xun baad isla gaaraysaan aniga fanka waxaan soo galay 2017 July 14 heeskii ugu horreeyay aan qaaday wuxuu ahaa idhe kii ku xigay aan qaaday wuxuu ahaa flop digdigta la yiraahdaa kii ku xigayna wuxuu noqday barbar gabigayga waxaan ku jiray 3 bilood rag waxaa marka magaalada aan wada joognaa 30 sano ku jiray kuwa 20 ku jiray kuwa 25 ku jiray kuwa 15 ay ku jireen magaalada waa la wada joogaa markii adigoo shalay magaalada yimid oo reer baadiya oo aan xataa baran systemkii magaalada cirka intaad ku dhigto meel kastoo la yimaado mikrofoonka afka laga geliyo lagu yiraahdo hebel ummadii dhan ay woo tiraahdo hadduu masayrku imaanaya reer commentiyo waa dareemi kartaan dadka waa daawataan fanaaniinta waa daawataan way kala masayraan fanaaniintu way kala masayraan sheekhyadu way kala masayraan dhakhtarradu way kala masayraan digtooradu way kala masayraan culummadu way kala masayrtaa cid walba way kala masayrtaa masayrku waa wax jira waa xanuunkaasi muxuu yahay waa xanuun negative ah qof baa la ammaanayaa ammaantiisaad dhibsanaysaa waxaad rabtaa xumaantiisa inaad sheegtid wuxuu kuu dhimayna male just waxa ay kuu dhibayso ammaantiisu waxa weeye waay aniga la ii sheegi waayey marka haddaad tahay quuriwaa oo aan qof bini aadana libinta aadan u ogolaan oo aadan dadka libinta u ogolaan oo aad quuriwaa tahay waxaa imaanaysa inaad noqoto qof asagana aysan nolosha u kala kicin oo xaasida haddaad dadka xaasido oo aad dadka u ogolaan weydo inay noolaadaan oo aad dadka u ogolaan weydo inay qurux badnaadaan oo aad dadka u ogolaan weydo inay labis fiicnaadaan oo aad dadka u ogolaan weydo inay kula simaan adigana waxay ku kala kicimayaan waxaad noqonaysaa qof ay ka jajaban tahay weligiis yaaliisan aan waxba kala kicin mana ogaan doontid meesha laga haysto noloshaada haddaad rabto noloshaada inaad ogaato meesha laga haysto waa in aad baadhaa inay jiraan cid aadan nolosha u ogolayn isa sax markaad isa saxdo wax walba ku hagaagayaan haddii aad isa sixi weydo
oo aad ogaan weydo inaad adigu xaasid tahay ama aad qof wanaagsan tahay aad is ogaan weydo baaritaan adigu isugu dhaqaaqi weydo shaybaar intaad isgeyso adigu laab isa saarto adigu qalbigaaga intaad sa u soo saarto muraayad ku daawan weydo dhihi weydo war anigu horta maxaan ahay maxaan ka samaysnahay wax kuu kala kacayo male aayadan baa ka hadlaysa xaasid qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq ومن شر خاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أيضا صلوا حكي كشكريسا جلس إيه حاسد مك شكريسا نور كأي فتين كان يدكو جهي وناج إيه ولا المدى إن يدكو جهي فرحت بن يدكو جهي وش وناج سن بن يدكو جهي أدون كورن ما وحي يحسك مثقال ذرة marka adigoo adduunkii midqaala daratin kugu yahay noloshiiba ay kooban tahay ma ku dhamaysan kartaa cugdad iyo ciil iyo negative iyo xaasidnimo iyo inaad qof bini aadan xaasiday ma ku dhamaysan kartaa waa maya you have to inaad isclean garayso waa inaad adigu horta is-soo clean garayso lab inta isgeliso aad waxa kugu jira uuska iyo raqaska iyo balaayadii wuxuu banaanka iska soo dhigto kow markaad adigu isclean garayso aad qof clean noqoto waxaa imaanaysa in wax walba ay ku hagaagaan oo aad noqoto qof isku toosan laakiin haddaad buuxdo oo aad caraysan tahay oo aad u caraysan tahay qofkii dhaqaaqa oo aad u caraysan tahay qofkii hadla oo aad u caraysan tahay qofkii labis qurux badan oo aad u caraysan tahay qofkii wax u kala kacaan oo aad u caraysan tahay qofkii business haysta oo cid walba aad u caraysan tahay adduun iyo aakhiro caradaasaad ku dhammaysanaysaa waad waalnaanaysaa waad xanuunsanaysaa waad cuqdadaysnaanaysaa wax kuu kala kacayana male my brother and my sister please and please shaybaar tag iska soo baar xanuunka jalasiga haddii uu ku hayo iska dawee dawadiisu waa inaad noqotaa qof ummadda ilaahay abuuray ee dunidan korkeeda la saaran gaal iyo muslim iyo buddhist iyo wuxuu doona ha ahaadee inaad tiraahdo walaalkay baa taa horay u soco dadka aad dhabarka ka dharbaaxdo dad waxaa jira dadka dhabarka dharbaaxo oo waxay rabaan siiya oo aan ku liban sheegan oo yidhaahdo horay u socda horay u soco baro kelmadda horay u soco ah baro walaalnimada baro kalgacaylka baro waxbixinta baro deeqsinimada baro in dadku noolaado oo bini aadanku ay hormaraan baro wargaaladu waa naga naxariis badanta wallah markaan gaalada eego iyo sida gaaladu u dhaqanto wallaahi oo bilaahi oo tallaahi shaki baa ay galaa waxaan dhahaa magaalada muslina mise muslimka gaalaha shakigaas ay galaa sababtu shakigu ii gala waxaa weeye hadda wadamadan gaalada haddaad timaadid ood fiirisid oo indhaysid waxaad arkaysaa curyaanka qofka curyaankaa waxay u sameeyeen baarkin aan qof bini aadan oo kale gaarigiisa dhigan karin haddaad dhigatid lacag baa lagu saarayaa tigid qof dadka xanuunsan waddankan waa la ilaaliyaa qof advantage ka qaadan kara ma leh waa la ilaaliyaa dowladdu lacag bay ku bixisaa qofka xanuunsan inaan xuquuqdiisa lagu tuman dhagool hadduu yahay hadduu si kale u xanuunsan yahay hadduu dowladdu lacag bay ku bixisaa xayawaanka waa la ilaaliyaa waddankan ma taaban kartid xayawaan waxaa jira dad intay bakayle dhagax ku dhufteen sharciyadoodii hataa kula ilaa hadda aan sharci haysan marka xayawaanka iyo dadka bini aadanka ee xanuunsan ee disableka iyo dadka bahyaha gaarkaa loo dhan aad bay ugu naxariistaan wadamadan aan anigu tegay oo dhan oo ilmo nimi aadan dadkan gaalada u taqaanaan idinku ay leeyihiin naxariis bay u sameeyaan way soo dhoofiyaan halkaanay keenaan shaqaysiiyaan caafimaad firiyeysiiyaan waxbarasho firiyeysiiyaan amnina waa siiyaan kalgacayl iyo walaalnimona waa tusaan wax ay ka rabaanna male hore u socon bay taagan yihiin annaguna waa soconaynaa 24 saac aakhiraan isku daraynaa waa isdaba taaganna kii wax yar ay u kala kacaan hadda isagoo awalba Soomaaliya ay tabcaan ahayd oo dadkeedu depression qabay dadkeedu qalbiga ka jirnaa dadkeedu xanuunsanaa dadkeedu rafaad soo maray dadkeedu qax soo maray baan haddana is sii dhibaataynaynaa meeshaan nasan lahayn goormaan nasanaynaa waa daallee goormaan nasanaynaa goormaan dad caadi noqonaynaa goormaan libinta isku quuraynaa ii sheega bal idinku when goorma baanu nafisaynaayo dad caadi noqonaynaa maalin kasta qof maalin walba qof baa qaliinka miiska saaran oo leeyahay hebel midada kale dadkaygu waxay badan yihiin dad ku raaxaysta jabka qofka qof jabay un haddaad jabto
shaah baa lasoo wada shubanaya jabkaaga nooga sheekay baa lagu leeyahay waaba lagu raaxaysanaya yaa ilaahayow baahi bini aadan inaan bini aadan wax weydiisto baryo buur waa igala culustee ilaahayow aadmiga ha ii baahin yaa bini aadan ilaahu ha ii baahin inaan baryo bini aadan oon idhaahdo bini aadanow saas iyo saas buur waa igala culustee ilaahu bini aadan ha ii baahin reer commenti oo bog iyo beerkaba waa idinka ogsoonahay ilaahay ha idin ammaansado sharaf iyo karaamaad leedihiin youtube-kayga boqolkii kuma waxaa ka dhiman wax yar 90 baa ka dhiman 90k maya 900 baa ka dhiman 900 baa ka dhiman 900 ka ku yaaciya bahashi ha naloo soo diro youtube-ka dhexda kaga sawirnayda cadayda darbiga aan kusoo dhajiyo libintaa idinkaa iskale sharaftaa idinkaa iskale karaamadaas idinkaa iskale la soco qaybta lixaad waxaan anu ka hadlaya waa journey to fame dhinac walbana waan ka hadlayaa gubaabo tala siin tala bixin walaalnimo ehelnimo dhan kasta waa ka hadlayaa walaalahayow allah idin ammaansado waa walaalkiin Omar oo idin leh qaybta lixaad baa inoo ballan